madaxda meesha joogta dhammaan waa salaamaya magaca islaamkan ku salaamay qof walba maqaamka ay ku joogto iyo mansabkeeda waxaan rabaa inaan si gaara markaan u magac dhabo oo u salaamo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha la doortay muxuu ahaa Jubbaland maadaama maanta aan joogno asaga muxuu ahaa ogeysigiisa maanta marka sida loo sheegay waa maalintaas weyn oo reer Jubbaland iyo taariikhdooda iyo dimuqraadiyadda iyo horu socodka Soomaaliyana magaca ku leh muxuu ahaay maalin kale oo weyn ay tahay oo calanka jamhuuriyadda Soomaaliya maalintiisii ay tahay waa laba munaasabadood oo isku soo aaday oo aad iyo aad u qurux badan oo aan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan hambalyo dadka reer Jubbaland waxaan leeyahay ayaguna hambalyo inta kadib walaalayaal Soomaaliya geedi socod dheer oo ku saabsan dawlad dhisidda ay soo martay maanta laga wada taariikheeyay raggii maxaan ku yiraahdaa dawlad dhisiddaas ka soo qayb qaatay oo 30 sano ku dhawaadkii muxuu ahay wadada dheer la soo marayay ku wada jiray oo ka ahaa muhiimka ayaa maxaan ku yiraahdaa ka hadlay marka gadaal dambe iyo meesha laga soo bilaabay inaan ku noqdo mar raba laakiin socodkaas dawladnimada mar walba mida asal u ahay isfaham ma asal u ahay isfahamkuna wuxuu ka imaanayay wada hadal uu ka imaanayay isqadarin uu ka imaanayay iswalaalsi iyo maxaan ku yiraahdaa ka imaanayay waxa dhaqan noo ahaa jirtay dadka Soomaaliyeed sida mudane muxuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur halka uu ka sheegay ayagoo isdirirsan xataa dagaalkoodu inuu xad lahaa dagaalkeenu ma gaarin dagaalka meelo badan oo Afrika kamid uu gaaray oo dadka in la jarjaro xubnahooda iyo in la gubo iyo in la balaayeeyo ahayd maanan gaarin weli Soomaalinimada iyo dhaqanka iyo xeerka iyo dhalashada iyo waxa iyo qadarin weynay dadkeena ku dhaxlahaayeen mar walba waxay ahayday mid aan ku soo caanamaalnay waana mid maanta laga hadlay in ay naga ciladaysan tahay oo ay cilad naga yeelatay waxaan rabaa marka wadadaas aan rabaa in loo noqdo baaqa halkan laga jeediyay ee ahayday ee loo fadhi maayo haddii ciddii mas'uuliyadda la saaray ee lagu ogaay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waajibaadkiisa dastuuriga waa xadidan yihiin waajibaadkiisa dastuuriga waa xadidan yihiin waajibaad aad u ballaaran oo dheer oo maxaan ku yiraahdaa dawladnimada ma laha laakiin muhiimad gaar ah ayaa loo soo qaaday intaas waajib oo madaxweynaha loogu dhiibay oo ugu horeyso inuu yahay ilaaliyaha dastuurka inuu ilaaliyo waa lagu xadgudbay waa la waxeeyay duruufaheena gaarka marar badan waxay keenayaan in khaladaad inay dhacaan isku ceebin mayno isku eedayn mayno laakiin qaladaadka in la iska qabto laga soo noqdo la iswarsado war meeshaas maya wadadii naga ma jirtaan wadada u noqonna la yiraahdo oo la isdhageysto ay ku baan maxaana la isku dhageysana markii la isla fariisto la isla hadlaa la isdhageysan karaaye si kale la isku ma dhageysan karo la isku ma maqli karo marka isfaham siyaasadeed oo loo wada jiraa mar walba wuxuu ahaay cunsurka aan ku soo caanamaali jiray oo aan muxuu ahay soo isticmaali jirnay asagii marka waxaan leenahay ha loo noqdo waxyaabaha muharramaadka ah oo dhinacooda in la aanay ahayn waxa kamid ah mandate-kii ay dawladda shacabka Soomaaliyeed dawladda siiyeen haddii uu dhamaaday meelahan luuqyada ahaan wax ka daydaya xaraan waay wax extension la yiraa oo dalkan ka dhacaya ma jiro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la siiyay mandate 4 sano ah mandate-kiisa 4 sano ahayd 7 February 2021 ku eg yahay madaxweyne waqti aad haysataa wali fursadaad haysataa wali 15 biloodaad haysataa wali waxbaad samayn kartaa wali dadka Soomaaliyeed oo dhammaa waxaas weyn yaa raalli ka wada ah oo inay kugu kaalmeeyaan diyaar u ah muddadaas aan sheegnay ka hor xilka laguguma haysto horena laguguma haysanin go'aan gaarista iyo mas'uuliyadda aday ku saaran tahay laakiin qofne mas'uuliyadda mustaqbalkiisa iyo magaciisa
iyo heybadiisa iyo dawlad iyo yaani dadnimadiisa iyo amnigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo midda guud inta qof gaar ma saarna qaanuun iyo maxaa loo sameeyay dastuurka maxaa loo sameeyay hay'adaha dawladda ee kala duwan ha ismiisaamaan ha is ilaaliyaan la yiri maxaa loo sameeyay waxa loo sameeyay inaan hal qof gacanta inta garab indhaha la isku qabsado gacanta garabka laga saarto inta la iska daba kaco qar iyo doon inuu kala dhicin daraadeeda loo sameeyay waxaan leenahay madaxweyne aqliga soo noqdo talada soo noqoto ummadda Soomaaliyeed inay kula shaqeyso way soo cadaysay inay raali ka tahay horay kula soo shaqeysay maalintii lagu doortay ilaa maanta walina waa talaan leenahay ra'yiyaan qabnaa marka aanan waxba ogeyn oo dadku aanay waxba ogeyn waliba waxa laga yaabaa inay jadda shakariyaan waxyaabo qaarkood aan sax ahayn ay ku dhawaaqaan ku hadlaan laakiin marka dawladdu ay wax u sheegto dadka waxa jira ay u sheegto oo ay la socodsiiso sida xaalka iyo duruufuhu ay yihiin dadku ma qaldamayaan tala sax ah ay diibayaan madaxweynuhu dadka hala fariisto dadka ha dhageysto intaasaan soo dhahaynay kama daalayno inaan dhahno wadar ogol waa waxa kaliya ee lagu marayo meeshii qaanuunka noo qorayo oo dastuurku qorayo oo qawaaniin kale qoraysa ay jirto ha lagu dhaqmo meeshii mugdi ka jira ama waxyaabaha naga dhimanay dastuurku waa qabyo loo yiri ay ka mid tahay qabyada naga ana aan ka wada hadalno ummadda Soomaaliyeed ha ka wada hadasho dawladda gogol ha fidiso la isku warsado wadar ogolna hal la helo si hore loogu socdo laakiin meelo yar yar yaan lagu laabanin inta aan hadlaynana wax kala kamaanaan hadli jirin inta un baan ka war waqtiga waa dhamaaday waa 4 sano sideedaba ayadoo iska yarayday ya haddana intii badan ay baxday maalin maalmaha kamida oo dawladani ay ka shaqeysay ma jirto in maxaan ku raadayay si qurux badan oo xaragal oo wanaagsan oo muxuu ahaay talada dalka hadii dib loo doortana sidaan oo kale mar labaad la doortana aan muxuu ahaay intaan u nimaado aan u sacbino aan u duceyno oo aan muxuu u hambaliyeyno haddii mid kale la doorto oo Soomaali ana sidoo kale asiin aan yeelan laakiin laga ma leexan karo wadadaas wada laga leexan karo oo meel kale ka furan maaha waxaas marka maxaa ka jahawareer siyaasadeed abuur marka waa maxay bari lama yaqaan wax dhacayo dadku marka in ay maxaan ku raadaan wax waa gooni jahawareerka siyaasadeed cawaaqib xumo leeyahay dadka urha loo bixiyo meesha loo socdo ha loo sheego kii ra'yi ka qaba ra'yi ha ku darsado kii kale ha ku qancay gacanta intuu taago u sacbiyo muxuu ahay ha ku raaxaysto haddaba kaco oo kalsooni badan ha helo laakiin inta maya xagga maya waa laga hadlay koonfur galbeed wixii ka dhacay waa laga hadlay ilaa maanta lagama jawaabin jawaab sax ah lagama jawaabin madaxweynaha la doortay ee koonfur galbeed ee hadda jooga waa soo dhamaatay waxaan leenahay madaxweyne laba waajib ku saaran labadaas waajib iska ilaali mid waa dadkaaga reer koonfur galbeed inaad nabadayso oo aad dib u heshiisiin u samayso oo kuwa wax sheeganaya aad madaxa gacanta ka saarto kuwa xiran oo siyaasad wax dad u xirnaadaan xurriyadooda lagu qaado siyaasadda u xun siyaasadda dambi ma aha qofka ra'yigiisa inuu cabiro jidka yimaado dambi ma aha inuu idaacadda tago hadlo dambi ma aha meel inay isugu yimaadeen dadka si loo ilaaliyo dastuurkaaba siiyo yiri isku imaada oo maxaan ku raatay dambi ma aha dadaa u xirxiran dadaa u dhintay dadaa u dhaawacan dadaa siyaasad daraadeed loo dilay waxaasi waa wax aad iyo aad u farxumo laakiin maxaa wax lagu farxaa ummadda Soomaaliyeed kartida iyo capacity-ga iyo dulqaadka ay yeelatay kuwa la dilay ayaga kabooda godan la garanay meel ku yaalo lagu daadiyay waaliday leeyihiin daday leeyihiin maxaan ku yiraahdaa aabayaal iyo walaalo iyo wiil hooyo dhashay ahaayeen wax la aqbali karo ma ahayn haddana wax ka sii daranayaan imaanin dadku waa liqeen kuwa jidku soo baxay koonfur galbeed waxaan la socdo macquul maaha magaalada Baydhabo barrac xabada lagu laayay qaarna waa la xiray dadku waa iswarsadeen war waxaan maxay ahaayeen war waxaan waa meel qatar waxaan ma fiicno waa haye meeshaan meel ka sixun yaanan aadine bal aan meeshaan joogno inta wixii laga hadlay maanta oo dhan Jubbaland wixii la soo marsiiyay iyo wixeedii war dawladdan iyo nidaamka baladkan ka jiro maanta anu ma garanayo maanta la joogo duruufaha jiro mid wax sidaa ka fiican oo la sameeyay karo wax badan waa ka dhiman yihiin wax badan oo horumar way u baahan tahay laakiin maanta waxaan qabaa wixii la sameeyay karay
wixii ugu fiicnaa in la sameeyey wala marka waxaan leenahay madaxweynaha la doortay mudane axmed asagana sidoo kale waxaan kula dardaarmaynaa dadkaas walaalaha ee tabashada qabo waxay tabashada ka qabaan waa tabasho siyaasadeed waaye tabasho kale ma ahan in uu xooggiisa iyo caqligiisa isugu geeyo ilaa ay hadda sida uu dulqaadka u muujiyeyna uu usii muujiyo lana jeriyo waxaan sidoo kale aad iyo aad u ammaanayaa odayaasha dhaqanka ilaa maalintii ku mashquulsan ee weli ku mashquulsan ee shalay noo yimid ee yiri waa ku mashquulsannahay waa jirnaa oo aan fariinta ugu farray iyaguna runtii door fiican ay qaateen waa ku ammaanaya waa ku xine laakiin Jubbaland waa ka soo baxday wixii waa ka soo gudubtay gudoomiye Xamza meeshaan si tafaasiil oo noogu sheegay nidaamka la maray sharciyad waaye intaasaaba sharcigii la maray ah wax badan oo annaga xataa naga mugdi ahay maanta waana loo iftiimiyey oo walaahow iyo muxuu ahay buuq la geliyey iyo been looga sheegay intaba maanta waana loo iftiimiyey waxayna ahayd wax saxa waxaan rabaa marka maanta maxaa jira galmudug xaaladda maanta ay ku sugan tahay mid lagu farxo ma ahan guddiga la tilmaamay ee maxaanku iraahdaa dawladdu ay samaysay waa kii maanta laga hadlayay inta uu Xamza halkan ka sheegay ee dawlad goboleedkan saxda ku ah ee dastuurka federaalka saxda ku ah intaas un baa galmudugna sax ku ah wax ka duwan ma jiraan dawladda wiilal yaryar xafiisyadeeda ka shaqeeya civil servant ah waa violation ayada lafsadeeda xeerku wuxuu qorayaa shaqaalaha rayidka ah siyaasadda active kama noqon karaan xeera qawaaniina qoraysa taalo oo jamhuuriyadda ay leedahay wiilal shaqaalaha rayidka dawladda ah agaasimayaal ah muxuu shaqaale kale ah ayaa guddigii loo magacaabay oo dawladdu ay waxaynaysaa dawladdu ma aha kaliya inay sharci si yani meeshii ugu hooseysa sharciga ku tumanaysa ahlu sunna wal jamaa waqad ka soo saartay inaanay ku qanacsanayn murashaxiintii tartanka inay u gasho rabay meesha galmudug la yiraahdo waqad kale ka soo saaray waxaas waa violation macquul ma aha war ka joojiyaan leenahay dawladdu waddadaas ka joogto wadda saxa ma ahan war dadka fursadda nidaamka federaalka dhan maxaa loo sameeyey nidaamka federaalka xukunka dadka in loo dhaweeyo ee nidaamka federaalka xukunka dadka ugu taga inay dawladda dhex daba kacdo oo ay ka daba gurguuratay meesheeda ugu tagta ma ahan institutionka dawladnimada checks and balances ka dhumay ha soo noqdo shalay maana daraad hanti dhowraha guud ee qaranka oo hay'ada ah ayaa soo saartay in lacag maqan tahay maxaa asiga la dib loo mareejiyay inta ka hadal idaacadda tag inta sheekan sheeg muxuu asaas dheh fool xumo waay maxaa ka sii horeeyay guddigii korjoogtayta baarlamaanka oo maaliyadda markay yiraahdeen 42 milyan oo dollar maqan waana tanaaxeer ilaaliyaha guud xafiiskiisa soo cadeeyay dokumentigan ay ku qoran tahay meesha ku maqan tahay maxaa la yiri guddiga dadka madaxda waa laga raacdiyay socdaal daadka maxaa waxay inta wax sheegaysaa meeshii ku danto waa dhamaatay dawladaha marka maanta dhahayo muxuu ahaayay transparency jiro wanaaga jiro oo horumar maxaan ku raay la gaaray fidnay ka talinayaan leenahay dawladaha saas ka shaqeynayo lacagta ay sheegayaan waa mid Soomaaliya reejinaysa mid Soomaaliya wax u talaysanaa tii cashuurta dadka ku qarriban oo jidadka ka xiran yihiin oo maxaan ku raay loo taageeyo jinka laga aruuriyay maqan oo meel lagu sheegin tii caalamku keenay hanti dibadda ah وروحاس الله اسكا يرسدو waxaas meel hal saaro horta inta wax kale laga hadlo koow waxaas waa arrimo kale laakiin meesha loo dhigtaas waa xoolo la dhacay oo maqan maalmaha kamidana waa lagu xisaabtami doonaa xaq ummadan xoolaha ay leedahay ma cafisinto waa la daba kicin dibiguna waa la daba kacaa waa la soo saara waxa waaye midda loo dhimanaayo laakiin oo biri sugeyn oo sanadada basugeyn
وبروسس كسياسات ما أنت ماشي أمراي أنت بدك يوري السياسيين تيوينا يوري شيء ترى كل عسن هاي بل كان طلعوا وبايع الدولة ما أنت جرتها داني سبب دواء حوجة بدرين لو ما ساعة كل ما ينسى لو ما كان سونا كرد دار الشل ولا كرسوي ولا ترتمو الله بكون هذا دار الشل بيدنا وكلا ربط مدة قرن كإنه كدكتو ومدة قل مدة ما أنت كسر عطاء كلا ربط مدة قرن كإنه كدكتو ومدة محن كنا هذا البنت لأنه يسكت دي هلا دورو وحي أن هشيس كأولنا هلا وضع حضلو حد هلا بناها قف جعليس معها مجلسها نظام كي لقوا شيء أو ضدك كل شيء هلا دورو وحي أن هشيس كأولنا هلا وضع حضلو حد هلا بلمو أنت أن لنا أنك أنت سواي قف الجورو هاي سنة إيو العلنا وكل العلنا تنا لقوما هايستو waxaa hullaabanay hoosta ku jira la isku haystaa oo aan leenahay marada laga faydo dadka Soomaaliyeed ha arkeen nidaamka 15 bilood kadib maxaa dhacaya maanta waa in la sheegaa laakiin lama garanayo waxa dhacayo sidii aan naqiinayna wax fiican oo qurux badan waxyaabahaasi kama dhalan jirin mar kale waxaan leeyahay reer Jubbaland waxaan leeyahay hambalyo waa u hambalyeynaya mar kale iyo mar kale nidaamka aad ilaashateen ilaashada halla dawladda federaal بس حقوق ذا أساسية قف كسر موادنا مع سياسي نمائيو مدح محور حزبيو مدحوينه هرئيو مدحوينه كانوا دولة قبل هذا هرئية معها حقوق ذا أساسية موادن كستلي هاي واي وحن ما أنت أنشيجنا بريفليج معه عاصمة جمهورية الصومالية مقالة مقدشو إيش ما أنت إلا ذا الكدوني وبعنتها هي إكتان لها دور مرة ورانا وعد عني وأنا كعلنينا دولة وماشي يكون وشاه دولة مقرتة أيضا نبك اسكوها يصدقك بس معها دخل جيدي نتقطع سؤال تاجنوا عاصمة وماشي دولة دي جوكتو وتدي لك حالة دي ما أنت كلمت كلا دق حلا دقي مقالة مسال سوقي ما أنت وحمل جنجاليال بلد بروف أجد كده حديث اللي يقول لسه ورنت بحي الوحان أنت لا صعدة كلا دق حلا دقي مقالة مسال سوقي ما أنت وحمل جنجاليال بلد بروف أجد كده حديث اللي يقول لسه ورنت بحي بابور تسكون عن إيش الجنجالة إنه بحره عقل جين سامحي محوى هاي حقك يمد دولة هوسة هو أكتو ذكر مقدشة كلهم أولا political representation أولا هاي سنين عشور بيبين دولة الدخل ورسئ إرماناي لما لي هداد منكالك أديدو حقد عاناك كينيسا سعان حقا الجودة هداد تراود منكالك أديدو أميا كي إرماناي حقد عانا أتربتين حقدك كينيسا ذاتك مركلان كعنا ذاتك مرقها لقدا